bishii lixaad ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray magaalada galiili oo naasareed la odhan jiray ilaa gabadh bikrid ah oo u doonay nin la odhan jiray yuusuf oo dhashii daawud ahaa gabadhana waxaa la odhan jiray maryam malaa'igtii baa u soo dhishay oo waxay ku tidhi nabad adigoo nimcaysan rabbiga ayaa kula jira. markaasay hadalkii ka naxday oo waxay isku tidhi maxay tahay salaantan malaa'igtii baa ku tidhi ha baqin maryamey waayo nimco ayaad ilaah ka heshay bal eeg waad uuraysan doontaa oo wiil baad u muli doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeeri doonaa wiilka kan ugu sarreeya rabbiga ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis daawud weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii yaaquub boqornimadiisuna ma idlaan doonto. kolkaasaa maryam waxay malaa'igtii ku tidhi sideebaa waxaanu ku noqon doonaan anigu nina garan maayo. malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi ruuxa quduuska ah ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan uga sarreeya ayaa hoosiis u noqon doona sidaa darteed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeeri doonaa wiilka ilaah. bal eeg ila adeerta elisabeedna wiil bay uuraysatay iyadoo da'weyn oo taluna waxay tiima dhalaysi loogu yeeri jiray u tahay bisheedii lixaad waayo waxaan ilaah kari doonin ma jiro.